wasiirka wasaaradda howlaha guud ee guryeynta agaasimaha guud bataliyayaasha agaasima waaxidada saxaafadda dhimaanta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaankii bacdii maanta waxay maalkan isugu nimi wasaaradda howlaha guud dhulka ee guryeyntu inay guud soo bandhigto oo la iskula xisaabtamo qorshe sanadeedkii 2022 bishii 8aad galay 6 bilood ayna dhaafay wixii wasaaraddu qorshaysatay January ay ugu talagashay inay qabato ilaa bishii 6aad taas oo salka ku haysay in sidii halkan madaxdii dowladda sheegtay wax la qorshaysto kadib la qabto kadib la soo bandhigo kadibna la iskula xisaabtamo. taasi waxay ka turjumaysaa oo caddaynaysaa inay wasaaradda howlaha guud ee guryeynta ay ka go'an tahay inay shaqada ay qaranka u hayso ay wixii kaga beegnaa iyo adeegay bulshada siinaysay ay noqoto mid qorshaysan oo halkii loogu talagelay gaaraya. runtii wasaaradaha dowladda iyo hay-adaha dowladdu dhammaantood iyagu ka duulayaan siyaasadda madaxweynaha